رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي قيري يا مانتا waxa uu kormeer ku tagay xarunta bangiga dhexe ee magaalada Muqdisho halkaasna waxa uu kula kulmay mas'uuliyiin ka tirsan bangiga dhexe iyo xubno ka socday wasaaradda maaliyadda waxaana kulankooda ay kaga wada hadleen arrimo fara badan oo ku saabsan xaaladda dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya iyo waliba lacagihii dhawaan dalka Soomaaliya loogu deeqay iyo cafinta barnaamijka deymaha haddaba ra'iisul wasaaraha markii uu tagay xarunta bangiga dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa waxa uu kula kulmay gudoomiye ku-xigeenka bangiga iyo wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaana ay kulankoodii kaga wada hadleen dardargelinta hagaajinta maamulka maaliyadda ilaalinta hantida dadweynaha qorshaha cafinta deymaha dalka lagu leeyahay kordhinta dakhliga daafurnaanta isla xisaabtanka iyo waliba dabeecadaha daabicidda lacagta cusub ee dalka Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe iyo wasiirka maaliyadda ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa ay uga warbixiyeen tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee loo qaaday horumarka hanaanka maaliyadda caqabadaha jira iyo waliba hanaanka lagu xalin karo ra'iisul wasaare Khayre oo mas'uuliyiintaasi wasaaradda iyo bangiga dhexe waxa uu kala hadlayay arrimaha horumarinta ayaa waxa uu ku amaanay dib u hagaajinta hanaanka maaliyadda dalka waxaana uu ku booriyay sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta si loo gaaro isku filnaansho dhaqaalaha oo dhameystiran isaga oo si gaar ah u sheegay in bixinta mushaarka shaqaalaha iyo ciidanka qaranka ay muhiimad gaar ah u leedahay xukuumadda waxa uu sheegay inay sharaf weyn u tahay Soomaaliya in 11 bilood la soo dhaafay ay waliba mushaarka shaqaalaha iyo ciidanka ay joogteeyeen waxaana uu sidoo kale u amaanay mashruucyada kala duwan ee dalka Soomaaliya ka socda ra'iisul wasaare Khayre ayaa sidoo kale waxa uu ka qayb galay kulan ay xarunta bangiga dhexe ay ku lahaayeen madaxda bangiga gaar ahaan arrimaha looga hadlayay gudiyada iyo waliba arrimo kale oo ku saabsan shaqooyinka bangiga gaar ahaan ama shaqooyinka bangiga gaarka loo leeyahay loogu sameyn lahaa sharciga maaliyadda ee wadanka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ayaa madaxda bangiga dhexe waxa uu kula dardaarmay in ay si wada jir ah uga qayb qaataan horumarinta dhaqaalaha dalka Soomaaliya iyo hirgelinta sharciyada dalka waxa uu xusay in horumarinta shaqooyinka bangiga dhexe ay sidoo kale awood siinayso bangiyada gaarka loo leeyahay dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeeray wasaaradda dekedaha iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo uu kala hadlay fulinta qorshayaasha hortabinta leh si looga guuleysto buu yiri ama loogu guuleysto dhameystirka ajendayaasha qaranka ee fududeynaya soo kabashada dhaqaalaha wadanka Soomaaliya